waxaa isa sii taraya kulamada lagu taageerayo matalaada gobolka Banaadir oo ka helay golaha aqalka sare kuwaas oo ay ansixiyeen xubnaha xildhibaanada golaha shacabka. kulan maanta Muqdisho ka dhacay isugu yimaadeen waxgaradka siyaasiyiinta cuqaasha iyo dhalinyarada beesha Shiqal Jazeera oo kamid ah beelaha Soomaaliyeed ay ku taageereen arintaasi. qaar kamid ah waxgaradka kulanka qayb galay oo la hadlay warbaahinta waxa ay sheegeen in muhiim ay tahay inay helaan xaqoodii siyaasadeed. waxa ay ka codsadeen madaxda dalka inay helaan xuquuqdooda siyaasadeed. Shiqal Jazeera waa dad taariikh leh oo aad u dheer 900 sano soo jirtay. marka in hadda maqaamkii ay ku lahayd Muqdisho gobolka Banaadir in la duudsiyo taa wax dhici karta ma aha. annagana waa ka soo jeednaa odayaasha dhalinyarada gaar ahaan dhammaan waxaan diidanahay annagoo xaq u leheen oo dalkii iyo wadankii waliba markaan fiirino deegaan Muqdisho xaafadaha aan soo tirsay 4 xaafadood 3 meel 2 meel Shiqal Jazeera deganeed waa 3 meel 2 meel markii la dhaho Shiqal Jazeera ahayd. marka intaas oo dhan alxamdulillah runtii waa dad oo yani soo jiray aqoon leh aqoontoodina runtii yani meel fog gaarsan way. marka hadii lagu mahad celi waxa laga rabaa inaad adna qof walba xaqi oo lahaay inaan laga doodsiinin sida nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam uu leeyahay wa'adi kulli haqqi haqqaha. qof walba xaqa ay leedahay si maxaa yeelay hadaan dalku uusan lahayn cadaalad laga bixi maayo burbur iyo dhibaato iyo balaayo. Shiqal Jazeera waxay leedahay mudnaanta koowaad gobolka Banaadir. annaga cid kale ma dhaawacayno cidna ma xaqirayno laakiin midda annaga aan leenahay ee xuquuqdeena ah ee koow inaan ku yeelano xibinta koowaad inaan annaga ku yeelano. gudoomiyaha gobolka Banaadir xubnaha matalaada aqalka sare oo la siiyay 13 xubnood taasoo aan aad iyo aad macnaha uga mahad celinayno dhammaan haddaan nahay beesha Shiqal Jazeera. beesha Shiqal Jazeera sida macnaha la wada og yahay waa beelaha degan Banaadiriga runtiina muddo 10 sano ka badan degnaa masaajidka 4 rukun waxaa dhisay Sheekh Maxamed Baa Xasan oo ah nin beesha Shiqal Jazeera ka tirsan. ugu dambeyn ugaaska guud ee beesha Shiqal Jazeera Axmed Sheekh Abikar Wali waxna uu muujiyay in muhiim ay tahay in xilligan madaxda dalka ay soo fiiriyaan xaq siyaasadeed ee ka maqan beesha. waxaan marka hore aan soo dhaweynayaa maqaamka la siiyay gobolka Banaadir 13 xubnood. waxaan ugu mahad celinayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka doqa magaalada Muqdisho. aydan waxaan aad iyo aad ugu xugnahay haddaan nahay Shiqal Jazeera waagi Maxamed Siyaad Bare 2 xildhibaan ayaan lahayn waa baxay Maxamed Siyaad Bare ilaa Cabdi Qaasin 2 ayaan lahayn ileen taariikhda xusaysa buug gadaal loo raaco imbigati ilaa alaana Shiqal Jazeera bartida buug kuma qorno way waxba ma haysato anigoo ah ugaaska beesha Shiqal Jazeera waxaan ka cabanaynaa xuquuqdayno madaxdayna sharafta leh xuquuqda Jazeera in la fiiriyo waayo cadaalad haddii ay jireen dhibaato way cadaalad inuu sameeyo wixii hadal ahaa walaalahayga ka soo hadleen waxa waaye maqaamka aan ku leenahay gobolka Banaadir in noo la siiyo federaalka 2 aan ku leeyahay anaka oo xildhibaano waxba kama haysano si kasta daa u hadalnay dacwo kasta aan gudbinay ma sheegi kara marka. mahad mutawakkil Hon Cable TV. shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaaraynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit. sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab.